marka YouTube leedahay intaan idna waa qasab inaad ogaataa bar video oo meeshan ku jiro inta uu sameeyna revenue sida caadiga ah inta basic oo dhan waa ka soo boodo sababtoo ah mar hadii aad leedahay channel oo monetization kugu furan yahay waa qasab intaas aan ka hadlayo dhan basic ah ana taqaana waxaan ka wada tusaale si aad soo galaysid markaad channelkaaga tagtid halkaas uu ku saareen profile picture-ka ka bacdina waxa ku dhufanaysaa halkan stereo and then halkan ku keenaya halkan waa list videoyada kugu jira meeshan listigan meesha kugu jira marka hal qayb aan ugu baahanahay qaybtan koobaad videogaaga inuu public yahay ama private inuu yahay adiga wuxuu ku yahay intaan list meesha ku jirto public inuu yahay ama inuu memberka asxaabta sida khaaska ugu talagashay membershipka ama inaad badaabicin iyo inaad khaas private geysin intaas midkood waaye halkan hadii uu YouTube-ka Google AdSense ugu furan yahay ayuu ku tusinaya on iyo off adaa ka dhigan kara videoga markaad soo geysid on ayaad leedahay hadaa rabtana off aad ka dhigi kartaa videogaada u baahneen inaad xiisis dul saarto taas waa adiga khaas ku tahay marka halkan waa restrictionska inta waxa weeyaan videogan wax restriction ma saabno macnaha age restrict ma videogan ilmaha looguma talagalin ma daawan karaan iyo sidoo kale videogan copyright saaran ama copyright claim leeyahay ayaa ah meeshaas restriction intaas meesha ku soo fuuleysa marka laba video aan rabnaa inaan tusaale u soo qaadano mar rabnaa waqti badan ku bixino ama waqtigu naga dhumiyo laba video oo kala duwan ayaan ku tusinayaa video koobaad macnaha waa video af Soomaali ah video labaad waa mid English laakiin waxa rabaa inaan ku tuso muhiimadda ma aha in English ku hadlayo kan Soomaaliga inay kala qayb badan yihiin kaliya ma aha oo ay kala qayb duwan yihiin sababtoo ah waxay u badan tahay targetka inaad ku jirno af Soomaaliga ku jirno laga yaabo wadamada target gareynaa laakiin si kastoo noqoto waxaad ka hadlaysaa oo muhiimsan kan hadda waa digital 24 aan ka hadlaynaa waa barnaamij oo hadlayo sida aad isaga diiwaan gelin karto affiliate network la yiraahdo digital 24 kadibna aad inta isaga diiwaan geliso linka isticmaashid saad lacag ugu sameynaysid taas waa taas intaan rabnaa inaan ka hadalno waa intaan halkan ayaan imaanayna oo qaybta ay ku qoran tahay analytics markaad tagto videogan ka bacdin waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay revenue markaad tagtid intaan fiiri 0.02 waa inta aan sameeyay sidoo kale kunkiiba inta uu sameeyay waa intaan waa 0.27 kunkiiba waxa dul saaran oo advertisers ay ku bixinayaan videogan dushiisa 3.1 intaas waad fahamtay tan macnaheedu waxa weeyaan 1000 waxa ka soo gali karta intaan 1000 ama video gabiyaantiis 1000 kuna video gabiyaantiis waxa dul saaran lacagta intaas leeg so that is very clear kana wad fahamtay si fiican u fiir halkan waa imaanaysa halkan markaad soo gashid analytics tag kadibna revenue imo and then waxa rabaa inaan ku tusiyo another video is not the same oo xeer different iyo leeyna mowduuc waa kala duwan yahay kaas waa affiliate marketing kan laakiin hadda rabnaa ku tuso wuxuu ka hadlayaa sida Google-ka videogan waaye kan sida loo rangareeyo Google campaign oo waliba aad u isticmaashid affiliate marka rabtid inaad isticmaashid markaad halkan imaatid waa dushiisa ku dhif analytics tag analytics markaad tagtid halkan revenue ayaad sii tagaysaa revenue markaad tagtid wuxuu ku tusinayaa marka halkan fiiri kii halkan 0.02 ayuu ahaa laakiin halkan estimate revenue waa inta accurate ka oo ku bislaatay waa 21.64 hadii arkan RBM kan waxa weeye kunkii view-ba imisa adiga aad ku helaysaa waa 243.15 ama 243.15 tan lacagtan waa mid guud ahaan dul saaran advertiserska waxay ku bixinayaan videogan dushiisa waxa dul saaran 742.38 waa inta dul saaran waaye ma aha inta aniga aan ka helay ama ka gangareena waa inta dul saaran laakiin hadii ay dhacdaba in ay 1000 qof oo daawato oo waliba target people ay daawadaan waa 2 ama 243 marka waad fahamtay halkan farqiga u dhaxeeyo tan waxay ka caawin doontaa koow inaad barato videoyada adiga meesha kugu jira channel kugu jira inta aad u furatay xayeysiiska ama monetizationka oo la dul saaray ama loo ogolaaday inta dul saaran bil video ka bacdin waxaad kala xulan doontaa oo adiga aad kala dooqanaysaa videoyadan aad ka hadashay kala duwanaanshooda tan waa midda ama meesha aad ka go'aamin karto mowduuca aad rabtid inaad ka hadashid mowduucyada way kala duwan mar walba
oo qiimo ahaan haddii aad software ka hadlaysid, haddii aad technology noocay noqotaba ka hadlaysid, haddii aad barnaamijyo caadi ka hadlaysid, haddii aad sida lacag loo sameeyo ka hadlaysid, way kala duwan yihiin, dhammaantood way kala duwan yihiin. markaa ka hadlaysa adaa dooran doona. laakiin waxa ugu muhiimsan oo ku tusiyo waxa weeye videoyada ku jira janaalkaaga video kasta inuu video kale ka duwan yahay. tusaale hadda waxaan rabaa in video kale ku tusiyo. halkan waxaa ku arkaysaa 21.1 sidoo kale waxaan rabaa inaan ku tusiyo video kale. tusaale another video. tusaale haddii aan video kale soo qaadano oo videoyadan mid kamid ah iska dooqdo ama mid aan si gooni u fiiriyo. kan waa software waa Bluehost, waa sida website loo host gareeyo ayuu ka hadlaya. marka bal fiiri waxaa ka artaa estimated revenue waa 48.13. halkan fiiri waxaa dul saaran oo Bertozan lagu bixinayo waa 81.70 intaas. laakiin guud ahaan waxaa dul saaran oo advertiserska ay dul saaran waa 235. hadda waad arkaysaa qiimo ahaan kan hadda inta uu sameeyay ayaa ka badan, laakiin inta dul saaran kan way keertahay. sababtu waxa waaye 28 maalmoodba waa isbedelaya. marka qaarkood waxay ku xiran tahay inta advertiserska. waxaa laga yaabaa 7 maalmood inuu qofkan xayeysiisanayo wax 7 maalmood waxay ka duunaan doontaa 7 maalmood hore, ama way ka badan kartaa ama way ka duunaan kartaa. marka intaas oo muhiimsaneed mar walba inaad ogaato videoyadaada meesha kugu jira ama janaalka kugu jira inay kala duwan yihiin oo qiimayaashu kala duwan yihiin. haddaad aragto marka si gooni qaar gooni u targadgasan kartaa oo horumarin kartaa, promotion u sameyn kartaa. haddaad aragtana aad views fiican haystaan oo sidaas u diin kartaa. waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.